qiso cajiib ah oo qiimo badan, wax ku qaadasho mudan. Fadlan muuqaalkan dhammayso. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Nebi Suleymaan calayhi salaatu uu aaday aroos qaraabada ah si uu u soo booqdo. Isagoo jidka sii haya ayaa waxaa ka hor yimid malakul mowt, wuxuuna su'aalay meesha uu u socdo. Wuxuuna Nebi Suleymaan ku jawaabay, waxaan u socdaa arooska qaraabada ah. Markaasuu ku yidhi, ma waxaad u socotaa arooska aan nafta kaa soo jarayo ee la ii amray in aan soo gabagabeeyo? Nebi Suleymaan aad buu u naxay, wuuna istaagay, wuxuuna isweydiiyey, ma meel laga farxaysanaa oo murugo isku beddelaysa ayaad aadaysaa? Wuxuuna go'aansaday inuu iska nagaado. Wuxuuna nagaaday. Subaxii markii waagii baryay ayuu reerkii booqday Nebi Suleymaan calayhi salaatu wasalaam, wuxuuna la kulmay aabbihii wiilka arooska ah. Wuxuuna aabbihii su'aal weydiiyey Nebi Suleymaan sababta uu xalay ugu nagaaday arooskii. Inta uusan ka jawaabin su'aashaas, waxaa u yimid malakul mowt, wuxuuna weydiiyey wixii xalay dhacay. Wuxuuna malakul mowtkii ku jawaabay, ilaahay ayaa i amray inaan soo laabto. Taasina waxaa sabab u ah in aan islaamka maskiinka ah oo reerka duleedka joogta uu wiilkii arooska ah aabbihii si wanaagsan u sooray oo ka farxiyey, islamarkaana ay islaantii ilaahay uga bariday in arooska ilaahay cimri dheer iyo nabad qab yeelo, taasoo ilaahay aqbalay ducadii maskiinta reerkiina ka barisay masiibada daran. Taasi waxay caddaynaysaa in ilaahay yidhi, isu naxariista, anna waan idin naxariisanaa. Walaalayaal, haddii ku anfacday faafi si ayna uga gargaarno masaakiinta.